qaybta koowaad haddaynu ku bilowno. Waxaan safar gaaban ku imid magaalada London ee cariga Ingiriiska, anigoo u socda ka qaybgalka xaflad aroos oo ehelkayga ah. 3 cisho kadib markaan joogay ayuu ila soo hadlay nin ka tirsan urur ka mid ah kuwa sida qarsoon uga shaqeeya magaalada London. Wuxuu igu ballamiyay maqaaxi caan ka ah magaalada London kuna taala South Kensington oo la yiraahdo Gaylis Bakery. Waan imid anigoo werwer igu jiro oo isweydiinaya wuxuu iga rabo. Markaan cabaar fadhiyay ee aan bun iyo macmacaan meeshii ku cunay ee aan kolba saacad hoos ka eegayo, waxa sikadiisa ii soo dul istaagay nin cad. Wuxuu ii sheegay in la ii soo diray oo uu ii qaadayo hudheel. Waan soo raacay gaadhigii, wuxuuna i keenay hudheelka River Bank Park Plaza oo ku yaala bartamaha London. Qof baa ii sii taagnaa albaabka oo si diiran igu soo dhaweeyay hudheelka. Wuxuu ii kaxeeyay qol albaabkiisa ay ku qornayd tirada 322. Qolka markii aan soo galay ayaan sariirta ayaan dharkii madoobaa ku labistay. Abba ayaan daawaday London Eye oo toos ugu beegan daaqadda qolka aan ku jiro. Waa meel ka mid ah meelaha ugu bilicsan magaalada London. Dalxiisayaal fara badan ayaa joogay. Gabalku wuu sii dhacaya, anna weli waxaan taaganahay daaqadda. Garaac xooggan ayaa albaabka la igu soo tumay, haddana waa la iska furay. Anoo yaaban ayuu igu yidhi, mudane, waxaa bilaabmaysa soo dhaweyntaadii. Waan soo raacay. Waxa uu ii fadhiisiiyey miis maro madow lagu sharaxay. Shaqaalaha dhammaan dhar madow ayay xidhan yihiin oo ay ku labisan yihiin. Miiska waxa saaran khamri cas, waraaq sida 3 xagalka u taal oo ay ku qoran tahay Welcome to the Brotherhood ay ku qoran tahay ku soo dhawow walaaltinimada. Sidoo kale waxaa taalay hees magaceedu yahay Welcome Home ku soo dhawow guriga. Markiiba gabadh dhar madow xidhan ayaa masraxa soo fuushay, waxaabay qaadaysaa heesta midhaheedu ay miiska saaran yihiin. Waxaana ka mid ahaa Welcome to where time stands still, no one lives and no one will. Erayo noocaas ayaa ku qornaa warqadda ayay gabadhu qaadaysay. Heeskaas oo ilaab qaaday misana cabsi igu abuuray ayuu mid madow ii yimid isagoo madaxa hoos furoorinaya. Ayuu igu yidhi, mudane, waa kuu diyaar gaadhigii ku qaadi lahaa. Dabaqa hoose ee hudheelka ayaa la ii geeyey. Waxaa igu sugayay gaadhi kala jiidan. Markaan gudaha u galay waxaan kula kulmay saaxiibkay. Waan ku naxay oo waxaan ku idhi, waar waa maxay sidani? Isna wuxuu igu halceliyey, waa adigii muddada daba socday inaad nagu soo biirto ee codsigaaga 2 jeer bay diideen Club of Rome and Scottish Temple. Hadda waxaa timid fursad aad isku muujin karto haddii aad daacad ka noqoto hawlaha lagu igmanayo. Waxaad heli doontaa xubinnimo buuxda. Magaalada waan ka sii baxaynaa. Waxaan gaadhnay dhisme dhulka hoostiisa ka dhisan oo aad yaabayso qaabka loo dhisay. Saaxiibkay gaadhiga ayuu ku hadhay. Anna 2 nin oo dhar madow oo ay qoortooda suran tahay 3 gees cas ayaa intay garbaha i qabteen ayay ii kaxeeyeen qol madow oo iftiinka qura ee ka baxaya yahay shamac. Waxaa goob madow soo fadhiya nin darajadiisu tahay 33 oo magaciisa igu sheegay Paul Macmillan. Wuxuu i weydiiyey inaan ku qanacsanahay inaan ku biiro ururkooda Black Marrow. Anna hore ayaan ka aqbalay.
habeenkii halkaa ayaa xaflad weyn laygu sameeyey 3 habeen kadib aniga oo sidii meeshii ugu jira ayuu Paul ii kaxeeyey qol madow dabadeed ilays ayaa lagu qabtay gidaarka waxa lay tusay khariirad madow oo ay cad yihiin 2 meelood waxa uu Paul ii weydiiyey 2 meelood ee cad miyaad garanaysaa waxaan ku idhi mid waa geeska Afrika ta kalena waa bariga dhexe Paul ayaa igu yiri waa dhulka Soomaalida ta kalena waa Shaam 2 meelood ku muuqday cad mid waa dhulka Soomaalida midna waa Shaam buudi Shaam waxa la isku dhahdaa Suuriya Falastiin Ciraaq Urdun wadamadaas la isku dhahdo waxa uu ii raaciyay in khariiradan lagu sameeyay shirkii Berlin ka dhacay sanadkii 1884 waxa kale oo ii sheegay arin argagax igu riday Paul Macmillan wuxuu igu yiri shirkaas waxa fadhiyay kii samada ka soo dhacay markuu arkay inaanan fahmin ayuu igu macneeyay idinku waxaad u taqaanaa shaydaan a'uudu billahi minash shaytaan wuxuuna ii sheegay in dhulka Soomaalida iyo Shaam ay yihiin 2 nuur ee u baahan in lala dagaalamo si qorshahayagu uu fulo haddaba daawadayaal muuqaalkeena intan ayaynu ku dayn doonaa intaynu ku kulmi doono muuqaalkan mid la mid ah waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sidaas iyo kulan dambe oo xiiso leh iyo la socodka qaybta 2 ee barnaamijkeena mashruuci la dagaalanka nuurka